Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu walaalaha garbahayga kusoo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay xafsaa youtube-kaad naga daawanaysan waa xafsa channel barnaamijkan waxaa idin soo gudbisay islaaniga walaashin xafsii soo dhawaada meel walba ay joogtaan waxaan allah subxaana watacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado suuban allah idin siiya insha allah waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waa fiicanahay alxamdulilaah waxaa inoo soo socday kitaabkeena imtixaanaha la magac baxay baro boqol xadiis hase yeeshee intaan u gudagelin darsigeeni maanta ugu horeyn haddii ay tahay marka ugu horreysay aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad hore noo joogto like saar u share gare asxaabtaada oo la wadaag nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeenii 58 biidnillaah bismillaah عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه المسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه المسلم أمنا عائشة الله كرال نقضي وحي كورنيسا النبي نودجنين حريس كركي ساعاتي إنو دهاي إن الرفق نمرنتا تورستا لا يكون في شيء إلا زانه وحو البؤ ويقر حساء نمرنتا تورستا ولا ينزع من شيء إلا شانه وحو البؤ أديك يقوت لو استمعانه وفيول حميسا نبي نبتقنين حريس كوركي ساعتي وحو دهاي تورستا دمرنتا wax walba way qurxisaa dhimrintu wax walba quwad iyo adeeg loo isticmaalna way xumeysaa yacni insha allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen haddii af soomaaliga isku qaldaan idin kala gelinayaa insha allah ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkayaga guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabeynaya daawashada muuqaalkayaga waad ku mahadsantahay haddii aad daawatay like saar usii share garay asxaabtaada oo la wadaag nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh